Xiddiga kooxda Real Madrid ee Eden Hazard ayaa meesha ka saaray inuu xagaagan isaga tagi doono kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Real Madrid, inkasta oo uu ku fashilmay inuu wax saameyn ah ku yeesho kooxda ilaa haatan. 31 sano jirkaan ayaa yimid Santiago Bernabeu isaga oo rajo weyn laga qabo sanadkii 2019 markii uu qaab ciyaareed fiican ku soo qaatay Chelsea kuna dhaliyay 110 gool. Xiddigan ayaa Real Madrid ugu biiray lacag dhan 118 milyan oo euro, taas oo ah lacagtii ugu badnayd ee laga badiyo xiddiga reer Belgium ama lagu bixiyo. Tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa lagu soo waramayaa in la siin doono lacag dhan 200 milyan si uu ugu xoojiyo kooxda suuqa kala iibsiga xagaagan. Kadib markii ay kooxdu ku jirtay cunaqabatayn muddo 3 bilood ah, kooxda Chelsea ayaa ku dhow inay milkiile cusub yeelato ka hor suuqa xagaagan. Sida laga soo xigtay The Telegraph, Chelsea ayaa la siin doonaa lacag dhan 200 milyan si uu Tuchel ula soo saxiixo koox u tartami doonta koobabka xilli ciyaareedka dambe. Haddaan ku bilowno shaxda ugu fiican ee 5 horyaal ee ugu waaweyn Yurub oo la soo saaray. Shabakadda WhoScored ayaa soo saartay shaxda ugu fiican 5 horyaal ee ugu waaweyn xilli ciyaareedkan dhammaaday. Waxaa bilowgii toddobaadkan soo afjarmay xilli ciyaareedkii 2021-2022 iyadoo ay horyaalada waaweyn ee Yurub soo xidhmeen. WhoScored oo qiimeyn ku sameeyay qaab ciyaareedka xiddigaha ka ciyaara 5 horyaal ee ugu waaweyn ayaa soo saaray shaxdooda ugu fiican. Waxaa shaxda laga waayay xiddigaha Cristiano Ronaldo iyo Mohamed Salah, inkastoo ay ka mid ahaayeen xiddigihii ugu fiicnaa Premier League. Sidoo kale waxaa shaxda ka maqan xiddigaha ka mid ah Borussia Dortmund haatan ku biiray Man City ee ninka la dhaho Haaland, inkastoo uu si fiican uga ciyaaray Dortmund. Kooxaha Liverpool, PSG, Man City ayaa shaxda ku leh xiddigaha ugu badan xilli ay ku leeyihiin min 2 xiddig. Kooxaha AC Milan, Bayern Munich, Real Madrid ayaa shaxda dhankooda ku leh min 1 xiddig.